magacaygu waa Liibaan Cumar Xuseen warbixintana waa warbixin yar oo ka diyaariyay taekwondo. Taekwondo waa ciyaar Korean ah. Ciyaar Korean macnaheedu markaa waa ciyaar Asian looga timid oo ahna habka nafta loo difaaco. Talabaad waxay kaga duwan tahay marka karate la raamaano dadkeenu badanka waxay ku qaldaan karate kelmadda karate laakiin badanka karate waxay kaga duwan tahay ciyaartani waa ciyaar yani aad caadi qof aad isku qabsanaysaan oo isku leynaysaan oo not even aanad yani is oranayn qofkan waxaas ku dhacaya ama naftaada waxaas ku dhacaya. kelmadda taekwondo markaan kala saarno waxay u fadhidaa tek oo ah maxay lugta oo la ogyahay inay gacanta ka dheer tahay si walba ay ahaato oo macnaheedu ay tahay inay tahay hub fog oo qof focus ka qaban karto iyo one oo macnaheedu tahay gacantii oo tababaran. marka waa lug tababaran iyo gacan tababaran dhawna waxay noqonaysaa habkii loo isticmaalay ee yani la isku dhexgelinay ee qofkii ka yani ku dhawna aad gacan ugu la dagaalamaysa ka fogna aad lug ugu la dagaalamaysa. ciyaartani iyadu badankeedu waxay u badan tahay lugaha iyo yani laagag warwareega oo badan taasoo ku saamaxaya inaad yani qofka hadaad mar laag la weydo aad 3 iyo 4 iyo laag 5 iyo laag ka gaarsiin karto. waxa la sheegaa bini'aadamku ilbiriqsiga quraata inta la isku qaban karayo ama inta ilbiriqsiga waxa la yiraahdaa bini'aadamku wuxuu ku indiis waxay ku ilbiriqsadaan waxa weeyaan yani half a second. laakiin marka taekwondo aan ciyaarayno waxaan isku daynaa ilbiriqsiga yar ee qofku in isha isku laabayo inaan wax ka jari karno ama ka gaarsiin karno isagoo meel naga fog taagan. talabaad taekwondo waa ciyaar yani sports ahaan loo ciyaari karo oo dadka iska dhexgalkooda u wanaagsan oo yani waxa maanta imka clubkaygan kale Somaliland International Taekwondo Club waxa nagu la ciyaaray Hindi, Ethiopian, Arab, Mareykan. yani dad isdhexgalkoodina way fiican tahay oo maanta qofku marka uu yani taekwondo soo dhexgal waa qof yani dad kala duwan soo dhexgal oo ajnabi oo kala bartay dadkii wixii oo dhan. horta ciyaartani waa ciyaar gacanta aan ku haynaa wali macnaheedu gacanta markaan ku hayno waxa weeyaan ubadkii uma sii deynayno in ay bahalkii inay wax iyagu naftooda khatar gelinay ay sameeyaan. markay wax walba sameeyaan macallin baa la jooga arday sarana wala jooga. macnaheedu waxay tahay hadduu maanta wax isku dayayo in yani aanu arday wax yani baqasho aan keenin. talabaad berigii hore ama sida diinteena islaamku sheegaysaba waxa la yiraahdaa ciyaalkiina fardafuulka iyo leebka iyo si naftooda difaacaan bara. tani waxay u berigii hore dadku waxay sameyn jireen yani ciyaalkeena waxay ku dhiili karin jirnay wax walba khaldan inay iska difaacaan. laakiin imika waxaad malaysaa in dadkeena soo dhexgalayso in yani in dagaalku xun yahay laakiin dagaalku ma xuma. ilmaha maanta markaad baraysid waxana sax ah waxana khalada waxa muhiim ah inuu u istaagi karo wax tana sax inuu arki karo tana khalada. يعني meesha kuma barno quraata dagaal quraata ay waxaan ku barnaa eedaab akhlaaq iyo diinteena saddexdaas ugu muhiimsan meesha. wallahi horta aad baan u jecelahay dadka ay taekwondo ay la bartaan oo maanta yani maanta dalkeena aad looga maad ay yaqaano. laakiin haddaad imka tagtid wadamada kale imka Ethiopia kale tagay Ethiopia waxa clubkii ku ciyaaraya ugu yaraan 800 qof 800 qof oo tababaran 800 qof waxay ka bedeli karaan yani ugu yaraan Hargeysa oo dhan 800 qof hadaynu qaybino 800 qof Hargeysa ku filan tahay oo iyaga sii baray dadka. laakiin imka clubkaygan ta ugu daran waxa weeyaan dadkii baan garanay macnaheeda oo waxay u haystaan yani wax aan faa'iido lahayn. laakiin aniga ahaan caafimaad ahaan waa u faa'iido aqli ahaan waa u faa'iido yani xirfad ahaan waa u faa'iido waayo waa shay aad naftaada ku difaacaysid. والله waxay ku xiran tahay kolba qofku sidoo yahay iyo jirkiisa ku xiran tahay iyo talabaad maskaxdiisu say u soo jeedo. haddii qof maskax soo jeeda yahay taekwondo wuxuu ku baran karaa muddo 2 sano ayuu ku soo khatimi karaa. laakiin hadduu qof yani caajis yahay oo wixii loo diray ka soo baxayn waa taekwondo waa sida jaamacadda iyo iskuulka kale degree bay leedahay diploma bay leedahay master bay leedahay PhD bay leedahay. marka qofku ugu yaraan 2 sano markuu ka qaato ayuu yani qof iska celin kara 10 qof u istaagi kara noqon karaya.